mooryaan baan 5,000 siinaa ii soo yeertay oo waa la dilhayaa ayadoon taana iga soo gaarin aan waxaan awoodi karaa ilaahay baa awood iska leh meel kastoo oo joogo Daahir Calasow inaan 50,000 ku bixiyo 1 shilinna aniga Soomaali ahaan uu iga soo gaarin dadka oo ka dhashay inta ay tiro la eg yihiin Daahir Calasow iyo wixii la halmaala waxaan leeyahay nin calool galkaagii ogaa haatan saciroobo sir iyo caad ku yaqaan lagama ceeb sheego ka fiirso hadalka aad leedahay naxwaha u daadeg hoos ninkan ree ayaydiis iyo ree abtigiis ya hooyadiis labaadana maanta ana shafka u garaacay iyo intii ila السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلامي ولا لا قالقا مال بعد الدنيا دافعك جوتين واحد اللي هاي وقتي ويوها إذا معنا هذا ولكن أحمد إفكا أو دب إن كوكو صلاتي ما شاء الله الحمد لله أنا وعف ما تخوى الله يسوعي إن محارة ما أنت أميس كنا سارن إن كهلا أن روا يا بحيت هاي وقت إنه يوسع راسه وجيده ما لا ودك تكسن هاي بس يمرك فيديو كان يسوع جاري مقالكي أنا وانا دمستيرني من سنة كذا وسي راعن أكستير أو قابلين أنا أركي مقال كان ونعنتي بحنا كأركي تيك توك وحنا قاعد سدي دجالكي ماشوا كسوة في جرمي أو باب جاي لو عنصري باب جاي أو لا شكتي أبود باب جاي أو لا شكتي قبيل هرت إن قبيل قفرت السوق فانا ما أنت مجرته باب جاي نوانين أو ما أنت إن قبيل كيسرن أو قرب تعين oo walaalihiisa garab taagan shalay hadii naafurnimo lagu ciilay maanta dad oo lixdooda lixaad qabaan oo adi ma aragtay oo ka baawar sareeyo abaabuji maanta garab taagan alxamdulillah qofkii maanta maskiin oo awood u sheegtay asigan waxa maanta u soo baxayo ninka baawar sareeyo misanka awood weyn adi meela fadhisaa meela ka soo hadashaa waxa tidaa sheegtaa wafaantii amanana waxa tahay rakihi meel fadhiyo oo dhanac ka soo khayliyo oo khaylidiisa magaalada dhan misan duurka dhan loo dul qaadan karin waaq soo dhaay afanta malena ama lacag ku sheega baabaji in nafsidiisa ugu soo qabto ama in ku sheego awood ku sheego misan qabiil u sheego laakiin maanta waxa ogaataa baabaji in familkiisa iyo dadkiisa inay garab taagan yihiin oo dad la'aan ahayn waafahantay malena number 1 waxa soo helay in muqaal oo baabaji hooyadiisa misana in ugu baaqayso cadawga baabaji maraxanta soo waxaan meediyaha waligay soo ma aanan gelin maanta igu kalifay inaan soo galo wiilkayga oo lagu caayay baabaji oo wada taqaanaan waxaan ahaa habaryartiis labaad waxa la yiraahdaa Faaduma Siraad Cabdi Maxamed Kaariye عبد محمد كارية يا حليمة محمد كارية أنا كلا له يديسي عنك سومالي ذو حيتي هذا أنا في قصي الله من هذا لفير الله أورن لبضو ويكوجو فجادان أو فيره وحيالا داهر على السوق فليجا جارسي وركا صرت أنت أمد سومالي هذا عوانك هذا الكان داهر على السوق هليجا جارسي waxa weeye 36 dawladood ayaa wadankanaga ku soo duushay dadkii hor istaagay ayaa reeyaydiisa wiilkan oo ka soo jeeda oo naaska nuugeed ma garatay dad la'aana laguma caayi karo 5,000 ku bixina mooryaan baan 5,000 siinaa ii soo yeertay oo waa la dilhayaa ayadoon taana iga soo gaarin aan waxaan awoodi karaa ilaahay baa awood iska leh meel kastoo oo joogo Daahir Calasow inaan 50,000 ku bixiyo 1 shilinna aniga Soomaali ahaan uu iga soo gaarin dadka oo ka dhashay inta ay tiro la eg yihiin Daahir Calasow iyo wixii la halmaala waxaan leeyahay nin calool galkaagii ogaa haatan saciroobo sir iyo caad ku yaqaan lagama ceeb sheego ka fiirso hadalka aad leedahay naxwaha u daadeg hoos ninkan ree ayaydiis iyo ree abtigiis ya hooyadiis labaadana maanta ana shafka u garaacay iyo intii ila halmaagto iyo intii maqlayda oo muslimiina waan la tuurahayaa waa la yeelahayaa midda kaleeto halkaas qulubta
ayaa jiis laga noqdaa. daahir calasow waxaan u malaynaa dad badanaa ku dhegaysta laakiin inaad inta jiis ka tahay maantaan meeshaan ka caddaynaa. daahir calasow ha layga gaarsiiyey. daahir calasow mar labaad waxaan ku leeyahay kelmadkii aad tiri waa inaad raalligelin ka bixisaa. intaas annagana na shaafisa, wiilkana shaafisa, ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo intii aniga igu ra'yiyahoo dhanna shaafisa. haddaadan samaynin waxaad ogaataa waynoo bilowdayo waynoo haddaba. qofkan waa baabajey hooyadiis saa aragteen. baabajey kolley walaalihiisana waa aragteen, muuqaalo fara badan waa ku aragteen. baabajey kama dhalanin dad maskiin, kama dhalanin. maskiin waxaa la lahaa horta nin oo dad lahaynin aa maskiin la dhahaa. maantana baabajey maskiin ma ahan. baabajey maanta dad walbo oo walaalihii Soomaali Maxamed aa garabkiisa taagan. kosokow waxaa ogaataa shalay baabajey waxaa malaynaysay nin laangaab ah misane oo waxba micnaha xamarka ahayn, micnaha Soomaali waxba ka ahayn, misane reer xamartaan kaleento oo maxaa lahaye ilaaha ujeeda la iska dhahayaan saasaa u malaynaysay. laakiin waxaa ogaataa baabajey qabiilka ugu baabarka sareeyo inuu kasoo jeedo taasaa ogaanaysaa. maantana waxaa kaleento soo gaaray muuqaalka kaleentana oo waxaan kugu xijinayaa waa asigii iyo wiilo wixii dhex maraya kolley. madax meel ka sareyso bini aadan laga taabto ma lahan. iga raali noqo, 1,000 jeer iga raali noqo. waa qaldama saaxiib, waa gafay, laakiin ma dhici doonto qaladkan iga. waa aragtaan shaakil ma laha. alxamdulilah horta ninka ragga sidiisaba 100% uqdad iyo waxaas in caloosha ugu jiraata aad horta lagu fiican yahay. baabajeyni siisan waa nin oo iska qalbi saafi ah, waa nin iska qalbi saafi ah dhab ahaantii mise run ahaantii. haddii aan ka hadlo wuxuu mudnaa baabajey asiga in loo hooydo. baabajey taasoo mudnaa maadaama asiga gabadha walaashiisa u hooyday waxbana kama qabo, hadalna kaas kama gelinayo. waayo waa dad wada shaqaysto, waa dad shalay wada bariisaynayay, waa dad shalay hal meel kasoo wada jeeday, waa dad shalay isku ooynayay oo maantana sidoo kaleento oo walaale. balse waxaa ka dhex faa'iidaystay dad oo mar ahaantaas duntooda oo meeshan ay u taalo ay maxaa lahaye ay ka talaalan tahay meel kaleento. dadkaasa shalay dulmiyey oo maanta baabajey iyo wiili ka dhex faa'iidaystay oo hadal dhexdooda geliyey oo dhahay saan waaye kan waaye Soomaali Maxamed maxaa ku ogtihiin. maanta baabajey waa aragtiin iyo wuxuu ugu baahan yahay, idoo wax ugu baahan yahay ma lahan. ilaahay u baahan yahay, idinka idinma baahan. waa fahanteena manayna. baabajeyni ilaaha wax dilo. qof bini aadin oo maanta baabajey intuu u tago oo kawka siin karo horta ma jirto. haddii $5,000 aa ku bixi lahayd iyo haddii $100,000 hadaa ku bixi lahayd intoodaba aday ku taalaa. balse mar ahaantaas idinka ma ogidiin meesha idinkugu soo maqan yahay. waxaa idin dhihi lahay qof bini aadin ah oo walaalkaaga ah oo naafo ah inaad adiga awood u sheegtid aad iyo aad loogu fiican yahay. adduunyada sideedaba uma socoto maxaa la dhahaye gadaal uma socoto. adduunyada sideeda hore u socotaa, way sii dhammaanaysaa leh. maanta markii walaalkaaga aasaan dhaaday beri adi maxaa kuu dambeyn doona, maxaas kugu dhici doona, saacad gudaheed maxaa kugu imaan doona. afka aa ku hadashay waxaa laga yaabaa inuu gadaalka amaraa laga yaaba. saacada ka bacdi waxaa laga yaabaa inaadan noolaanina laga yaaba. laakiin walaalahaygiiyo iyo idin sirin meesha aad joogtiin quruxdeeda misane iyo idin sirin jabiga idinka aa ku jirtiin. qof Soomaali joogo oo wadankiisa oo mar ahaantaas difaacana misane wadankiisa joogo oo ilmihiisa ugu biris dhacsanayo inaa ugu soo cagajuglaysid. $5,000 kuu soo dira, madaxaaga ku dhiiba, meelaa lagu saara, saanaa lagu yeela. horta aan cidaa maanta ka cabsanaya malahan. ilaahay baa cabsi iiga baahan. waa fahanteen malena ilaahay maaragtay aniga cabsi iiga baahan. waxaa ku dhihi lahaa waan ku dhihi lahay waxyaalaha sameynaysid iska daa. waxaa tahay nin weyn aa tahay inay xisaabtantid 100% fiican. ilaaha kuu jeedo, afkaa ku hadlaysid
ilaaha kuu jeedo wax walbo ilaaha kaa weyn alihii maanta oo baabajey saanka dhigay wuu awoodaa adiga inuu aad dhan ku kala gediyo oo calooshaada wejigaaga keeno gacmahaagana lugahaaga hoostooda keeno alaas wuu awoodaa laakiin waxaa idin dhihi lahay walaalayaalow islaamka yaa lagu qaldamin dadka yaan la dulmin dulmigsiisana ma fiicna meeshan waxaan usoo fadhiistaa wixii runta ee aa ka hadlaa waxaa ishayda ku arko oo qalad ee aa ka hadlaa wixii aan sax ahayn ma ka hadlo shibaaba wixii oo sax ah shibaa ka dhaha waan ka aamusaan laakiin wixii aan qalad ahayn qalad ma aha waa dhaha bulshada waa usoo bandhigaan marka waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meelba dunida daafeedka joogtiin waxaa idin leeyahay walaalihii olagaas waa idin jeclahay subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta igu caawiya hala ii saaro waqtigii waayuhu ha idin